waxaan sidoo kale rabaa inaan runtii meeshaan aan fariinta labaad uga dirayaa arrin soo cusboonaatay barihii dambe oo ahayd faragelinta Ethiopia hadda ciidan runtii hor leh geysay magaalada Dhuusamareeb waxaan dhowr jeer isweydii jirnay muddo dheer waxaan isweydii jirnay dawladda iyadoo looga baahan yahay ciidamo shabeelooyinka iyadoo looga baahan yahay ciidamo banaadir waay waxa soo ciidan ugu raraysaa maxay gorgor iyo danab iyo haramcas iyo inisa iyo waxa soo ciidan ku ilaatanaad meesha joogto oo intaas oo daraawiish galmudug leedahay waxa soo ciidan oo magacyo kala duwan leh waay maalin walba Dhuusamareeb loogu daabulaa anagu su'aashaas qabna ayaa waxa dhacday ka daro dibi dhal ciidamo Ethiopian ayaa loo wacday ciidamo Ethiopian ku sugan magaalada Dhuusamareeb sida ka warqabtiin يعني وأرن رنتي نسوح حسوسينيسا إسلا الدولة ده هذا فعلا واحد يكسر ما يسي أسبوعين اللي صار في قبل كجدو واحد يكسر ما يسي سي أوجع إنجليزي سي أوجع مروجسي دورشة دي كده عليه كونفور قلبات وعيدمد إثيوبيا رنتي قال لو قول عليه وقول عليه إرجعي هراء قرامة مدوبي وقال له سؤالي سلقي جوابي واي رن أهانتي عيدمد أسمان تيمد شلي يدرد يمد Dhuusamareeb run ahaantii waxay muujinaysaa niyad xumo aan ka dareemayno dawladda inaysan runtii ahaan aysan rabin inay meeshaas doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo inaga oo rabna inaan processka kala hadalno laakiin hadii ciidamo Ethiopian la soo daabulay waxa dareemi kartaa sida ay muuqato inay dawladdu uga walwalsan tahay inay meeshaas doorasho xor iyo xalaal ay ku adkaa karto waxaan rabaa meeshan inaan dhowr fariin uga diro dawladda waxaan rabaa inaan iraahdo ku kalsoonaada shacabkiina ciidamada Ethiopianku ma coday doonaan ciidamada Ethiopianka waxa coday doona xildhibaano Soomaaliyeed oo odayaal Soomaaliyeed soo xuleen ayagaas waxaan leeyahay ku kalsoonaada codka ka raadiya ciidamo Ethiopian iyo jujub iyo caburin Soomaalidu waa lagu kari waayay reer galmudugna kuma sii jiraan marka waxaan rabaa arintaas runtii inaan ka digo waxa kale oo rabaa inaan idin sheego taariikhda yar ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo runtii maamulka cusub maanta Ethiopia ka dhashay ayaan rabaa in maamul walba markuu dhasho wuxuu leeyahay xoogaha yar oo la yiraahdo wuxuu leeyahay ambition gala Ethiopia 1977 markii Soomaaliya ku soo duuleysay waxa haystay Mingiste oo markaas 1974 xukunka qabsaday waad fahmi kartaa ninka qofka markuu cusub yahay muddadiisa koowaad waxa gala ambition oo inta ku bood ah laakiin Soomaaliya 1977 cadawii uga soo duulay xilligaas maamulkii Mingiste run ahaantii waxba kama macaashin meelna waxna waa ka kari waayay sidoo kale maamulkii TPLF ee hadda dhacay 1997 markuu cusbaa 1990 uu yimid 1995 kii runtii dalka wada qabsaday laakiin 1997 kii Soomaaliya hore ka soo wada galay sidoo kale 2007 doorasho wuxuu ku soo guuleystay 2005 runtii si uu soo musuqmaasuqay 2007 Soomaaliya mar la soo galay waxaan dareemi kartiin maamul kasta cusub maamulka hadda Ethiopia ka jira waa maamul cusub 2018 oo dhashay 2019 wuxuu bilaabay inuu faragelin oo runtii Soomaaliya ku bilaabo marka waxa jira wax weeyaan maamulada markay cusub yihiin oo waliba dawladaha oo sida Ethiopia oo kala waxa gala hami ah wax walba waa qaban kartaa Soomaaliya faraha la gali kartaa intaad dhankaas kala ku boodi kartaa dalkaana ku boodi kartaa laakiin waa wax mar walba wax yar ka dibba horay dawladuhu ay ka gartaan yani hadda maamulada ay idin sheego dhan maamulkii Mingiste Soomaaliya 1987 heshiis la galay sidaad ogtihiin maamulkii TPLF hadda dhacay Soomaaliya markii ugu dambeysay isagoo leh Soomaaliya sideen yeelnaa halkaas ay naga taala anagu ma faragashanayna ayuu runtii Soomaaliya ka baxay waa dareemi kartiin maamulka hadda runtii waxa wada dhalanteedkaas ayaa wada dhalanteedkaas oo cusaybka ahna runtii waxaan leenahay Soomaaliya way taqaanaa dadka cusub marka ay wax isku dayayaan laakiin waxbana runtii dhalanteedkaas waxba Soomaaliya kama qaadayo reer galmudugna waa ku kalsoonahay runtii inay doorasho qof iyo doorasho xor iyo xalaal ah ay samaysan karaan oo runtii ay iska dhici karaan cid walba oo isku dayda in maamulkooda ama maxaa la yiraahdaa isheeg state-kooda samaysashadiisa inay ka farageliyaan ama ka carqaladeeyaan waxaan leeyahay reer galmudug maamulkaas ayaan idin rajaynayaa doorasho xor iyo xalaal inay meesha ka dhacdo ayaan rajaynayaa dawladdana waxaan ku bogaadinayaa inay runtii ay ilaa hadeer aysan meeshaas xabad ka dhicin laakiin waxaan uga digayaa meeshaas inay wax xabada ama dadka ay colaad ama ciidan Ethiopian ama ciidan kale ha ahaatee inaysan meeshaas waxba ka dhicin insha Allah taala sidaas aan rajaynayaa waa maasantiin